xafladan oo ay qabanqaabadeeda iska kaashadeen naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada Quraanka xaafadaha kala duwan ee magaalada Qaahira sida xaafada Saabici oo ay ardayda ugu badan ay ka yimaadeen ayaa waxa lagu qabtay howlka shirarka iyo xafladaha ee Salax Kaamil ee dhismaha jaamacadda Al-Azhar ee magaalada Qaahira ardayda abaalmarinada lagu gudoonsiiyay xafladani ayaa ah kuwii ku guuleystay oo kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad ka galay tartankii Quraanka Kariimka ee bishii barakeysneed ee Ramadaanka soo ardaydu ay ku soo tartameen 30 juz 20 juz 10 juz iyo 5 juz ee Quraanka Kariimka ah munaasabadan qiimaha badan ayaa waxa ka soo qayb galay oo lagu cusubay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Qaahira oo ay ka mid yihiin الشيخ دكتور عبد الناصر جامع ورسمي شيخ مهدي شيدنا قاري iyo sheekh Cabdihaab Nuur Sheekh Xasan oo loo yaqaan Sheekh Ufuro oo isagu sidoo kale ahaa gudoonka gudiga garsoorka ee tartankan ugu horeyn waxa furay xafladan oo ka hadlay gudoomiyaha naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar Maxamuud Sheekh Cabdiraxmaan Holow waxana uu yiri hadii aan ururka ardayda Soomaaliyeed aan nahay marwada waxaan u taaganahay inaan maaragtay ka qayb qaadano munaasabadaha oo muhiimka ah noqoto inaan soo qabanqaabano sida tan Qur'aan iyo munaasabadka kale oo wadaniga ah iyo diiniga ah inaan soo qabanqaabano ayaan daawanay sanadkan bifadlilaahi waxaan noo suurtagalay sida arkaysaan inaan soo abaabulno munaasabadan oo Qur'aanka Kariimka ah bisha Ramadaan aan soo qaatnay waxay bilaabatay 15 musaabaqada waxay bilaabatay 15 bisha Ramadaan waxayna ku xigeen maalintii ciidda habeenka ka horeysay sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudiga garsoorka ee tartankaasi Sheekh Cabdihaab Nuur Sheekh Xasan Ufrow oo faahfaahin ka bixiyay qaabkii ay gudi ahaan tartankaasi Quraanka Kariimka ah ay u kala saareen ardayda macallimiinta soo wakiistaan inaan meesha aan ka hadlo macallimiinta wadadii way fadhiyaan marka wakiil naga amadana gudiga taxkiimka ah sababta aan soo saarnay in oo ilmaha oo qofkas macnaha xaqiisa siinay qofkas kulay oo arkay doona wixii oo loo soo qabtay marka saacada ayaan saarnay Quraanka orana laga tartamay oo dugsiyada dhan marka saas ayaan wareysiinayaa هذا إن شاء الله أن تسمعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay oo magaca waalidiinta ka soo qayb gashay xafladani ku hadlay Bashiir Maxbuub oo ka hadlay waajibaadka waalidiinta ka saaran waxbaridda ubadkooda waalidiinta aniga aan ku hadlayo waxa loo baahan yahay in waajibaadka saaran ku aadan carruurtooda inay ka soo baxaan waxaa laga yaabaa عمرك من اهتمام الوصف المطلق وحياة دنيوية ومشغول السياسة ذات واسنا فقط ومرض سليماني محافظة وحقوق أكثر إلا أقران صاحبه مركوة فريق ذات واسنا أولا وحياة عيان وقت ومرض القرآن كصواب ومسيرات كل بوعود الشرعي كالبان شرعي marka waalidiinta waxaan ugu weysiinayaa kaliya in arrintaas ay dadaalaan inta quraanka waa qofka oo manzila caadi ilaahi subhanahu wa ta'ala lugeynaya adduunya wal aakhirah iyadoo marti sharaftii munaasabadan abaalmarinta ah ka hadashay ay aad u fara badnaayeen ayaa waxa sidoo kale mikrofoonka lagu soo dhaweeyay Sheekh Dr. Cabdi Naasir Jaamac Warsame oo ku booriyay waalidiinta ka soo qayb galay xafladaasi in ubadkooda ay ka ilaaliyaan in diinta si qaldan loo fahamsiiyo man qala li akhihi ya kafir faqad kafara bi nabi sallallahu alayhi wasallam qof muslima oo ashhadani oo salaamay oo la yaskadu bixinay oo halka laga raadi xijaab qabta ya in mujarrad macsiya ama khata ay ku dhacday balfiirdi oo laftiga soo baahan qaadi sharci diini oo islaamiya inta loo geeyo qofka maxaa kugu bixiyay hadalkaada sameysay ficilkaada sameysay maxaa uu sameysay qodada loo geeyo fiirdi qaadi islaam daarintii buu baaraya shubha intii shubha laga carabay qofkaas la nabad gali karo wala nabad galinaya illa inuu kufr bawaxa isagu tala soo baxay ibaadada weeye inda Allah min Allah fihi burhan ay cadahay weeye mas'aladaas riddada iyo takfiirka waa badanta dhalinyarada looga digo waxa uu ku soo koobaya imaam Shaafici rahmatullahi ta'ala alayhi wuxuu oran jiray allimu awladakum alhalal wal haram waxa kale oo badaan buu yiri inay ribadu xaraan tahay zinadu inay xaraan tahay saas oran jiray imaam Shaafici rahmatullahi ta'ala alayhi وإلمه نفيرتي إلمه قرية نمرك تشوغان واحد قرآن كان أنا أخيرا waxa Allah
wuxuu ka digayo ya oo maaragtay nawaahiga waa inaan ilmihi uga digna bal fiir quraanka ribada waa inuu ka digaya waa inaan ilmaha ribada waa inaan fadhaa axkaamta ribada iyadoo iska basiida dabcan maskaxdooda levelkooda adoo eegaya zinada inay xaaraan tahay faaxishada waa inaad uga digtaa beentu inay xaaraan tahay waa inaad uga digtaa ghiibada iyo xantu inay xaaraan tahay waa inaad ilmaha uga digtaa fadhaa namiimnimada iyo dadka isku dirayo waa khatar waa aafo bal fiir نمام لا يدخل الجنة قتات وفي رواية النمام فالنبي عليه الصلاة والسلام جنة ما بلودي معايا لي وإفساد بين الناس إفساد بين الناس xafladani oo uu xiriirinayay gudoomiye ku-xigeenka naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar Ibrahim aw Xasan Ismaaciil Waabari ayaa sidoo kale waxa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay Sheekh Mahdi Shidana Qaaray oo kamid ah shuyuuqda magaalada Qaahira oo u dardaarmay alla ka cabsi dhammaan dadkii xafladan abaalmarinta ka soo qayb galay عبسنا إلهي سبحانه وتعالى ونفر لنا كعبصر محادا وكتيرا الله سبحانه وتعالى إفضل أي قرآن موجود الماضي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وفي إلهي كعبصر فريق الدول محرمها هذه إلهي سبحانه وتعالى وحل ليه يمكن سبحانه وتعالى ما يوضح يوصل إليها ugu dambeyntii wax mikrofoonka lagu soo dhaweeyay macallin Sheekh Xasan Ibrahim Taliye oo matalaya dugsiga Saabic kana mid ah macallimiinta waxbaray ardaydan Quraanka Kariimka ku soo tartamay ee abaalmarinta la guddoonsiiyay القرآن وحكى لماهن قرآن مركز داخلني سحلو بتدبر الله سمايه بدنا 200 آيات كسر بدنا آيات بدنا كجرو إلهي لقى عبصر صلاة يكاه الله يسال وحيال بدنا يكاه القرآن ويكاه الله تقوى تافير أنا كسر ما يسره كليه ماهن تقوى ملك استيسود الله يسال وقت طلاقة مرك بيزنس الله سمينا أي تعاملات علمي لا تقوى استيسود الله يسال مركنا موضوع نكاس ماهن وإن القرآن كأن كد ذانه لأن قفك مرك وحن وأركو وإنسان مرك وحن فيريو إنه صح سلوا بين القرآن وتمثل الإله محده قل للمؤمنين يقضوا من أبص إنه نديس دور لبهايا وحكس القرآن وتمثل إنه قالوا بهايا لكن القرآن أن قفك سامينين واسكلاص عنا بفيلم دي هاي سي هذا شيخنا دمار وحاول مديها مرة في الصار بفيلم دي فائدة مرة ما كان يعني قاس لأن القرآن كنا نحاول كلية فعل وفاعلين أسمينا أنا يوم تأثيره أو القرآن كان كنت أثرنا وحاول كل دول كان أن كبدنا أن نحاول كلية أمرنا الله سبحانه وتعالى القرآن كان وصل دتيه isku soo wada duuba waxa gabagabadii xafladani abaalmarino lagu guddoonsiiyay 740 arday oo kalimaha koowaad labaad iyo saddexaad u kala galay tartankii Quraanka Kariimka ee bishii barakeysaneed ee Ramadaan iyadoo ardayda tartankaasi ka qayb gashayna guud ahaan ay ahaayeen 180 arday oo ka kala yimid dugsiyada kala duwan ee xaafadaha degmada Madiinatu Nasr ee magaalada Qaahira waxaana sidoo kale halkaasi shahaado sharafeed lagu guddoonsiiyay 3 macallin oo kamid ah macallimiintii ardaydani kuwaasi oo kala ah Sheikh Shuaib Macallim Buule Sheikh Xasan Ibrahim Maxamed iyo Sheikh Abdulhaab Nuur Sheikh Xasan Cabdirasaaq Asmaan Bulqaas Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Qaahira